deegaanada hoos yimaada gobolka Haw ee magaalada Beligubad iyo nawaaxigiisa ayaa muddooyinkan dambe abaar baahsan oo ka dad iyo xoolo saameysay ayaa ka dhacday. Dadweynaha iyo reer guuraaga ayaa intoodii xoog lahayd ka guureen waxaanay ku guureen dhinacyada koonfureed oo u jirta 100 kiilo. Hase ahaatee waxaa ka hadlay barasaab ku-xigeenka gobolka Haw Warsame Farax Soomaali oo shir jaraa'id qabtay. Waxaanu kaga hadlay arrimo dhowr ah dhinaca xaaladda abaareed ee nololeed ka jirta deegaamadaasi waxaanu xukuumadda baaqdheer u diray waxaanu yidhi waxa weeyaan 38 kaam iyadoo aan kala inta Beligubadle iyo nawaaxigeeda aan magaraas aan ka hadlayo oo ilaa ma kaam tuug intaan soo maray kaam tuug aadana bakor oo Dembriyaale ilaa ma Beligubadle area iyo balaca baraya sayla waa 38 tuulo intaan soo maray muddo 3 cisho saddex tobanka golaha deegaanka oo maayirka hogaaminayay iyo isduwaashii gobolka intii ka joogtay dhowrkii ka joogay ayaa horta mudana madaxweyne ku xigeen igu maqan koobkii 38 kaam ee uu gobolka hoos yimaada koobkiina inta imika horta ay soo gaarsiiyeen mudana madaxweyne waxa ay soo gaarsiiyeen 6842 qoys hay'adaha قابلسن عفوينك يا أبارها هيدا إسلامينك إنه وفود إسلام كه معاونك وده أبارها كسابسن جناح ستة غير سوماليلاند ولا بقارهان كوا هود إن يدلكوا ده أسوق جرمدان إلى هيبقى جرمد كلام ويتينا متعامل قربتوار كوا درجنا نقوليه inay deg dadkooda iyo dalkooda ugu soo gudbadaan. Dadweynahani oo ku noolaa oo ilaa hadda aanay iib iyo suuq midnaba u haynin dadka iyo xoolaha ayaa labaduba raashinka nool ay ku nool yihiin markii ay waayeen haws ay cunaan. Axmed Maxamed Cawaale TV-ga qaranka gobolka Haw Beligubad.